bulshada midkii wadi lahaa walaalayn lahaa waa naga ashirweynihii labaad ee xisbiga wadani oo maalmihii u dambeeyay ka socday magaalada Hargeysa ayaa maalintii shalay ahayd waxa lagu doortay hoggaanka cusub ee hogaamin doona xisbiga rashada shacabka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ku-xigeenadiisa iyo xubnaha hanti dhawrka xisbiga haddaba muqbaahiyaha caalamiga CBA ayaa telefoonka la dhex qaaday dadweynaha ku nool degmada Ceerifen sidoo warkaan hoggaanka cusub ee loo doortay xisbigaasi waxaana kamid ah hadalada sida tan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh magacaygu Cabdi Axmed Xasan anigoo ugu hadlaya madax dhaqameedka degmada Ceerifen odayaasha ka tirsan waxaan soo dhaweynayaa hoggaanka cusub ee xisbiga wadani waa inaan firfircoon oo dhalinyaro ah xisbigaasi waa guul u soo hoyatay xisbiga wadani isbedelkaasi wuxuu ku talaabsaday waxaanay xisbiyadii hore ee ka waaweynaa ku talaabsan si wacan baan u soo dhaweynaynaa waana la shaqaynaynaa xisbiga loo doortay Xaaji Xasan Cadami waan salaamaynaa boqolkiiba 9 iyo xubnihiisa ka hooseeya waa hambalyeynaa hambalyo gudoomiyaha hore ka tagayna waxaan geesnimo isticmaashay raganimo leh sidaad u go'aansatay inaad ku wareejid saaxiibka Xirsi iyo xubnihiisa waa salaamaynaa boqolkiiba 9 waana hambalyeynaa waxaan doonayaa inaan halkan ka hambalyeeyo xisbiga rajada shacabka Soomaaliland ee wadani waxa la oran karaa wuxuu dhigay taariikh iyo history cusub oo aanay dhigayneen xisbiyadii ka horreeyay ee guunka ahaa waxaan si aad ugu hambalyeynayaa hoggaanka xisbiga cusub sida Xirsi Cali Xaaji Xasan haddii ilaahay ka dhigayo hogaamin kara 5 sano soo socota xisbiga gaarsiin karana yoolka iyo hiigsiga ay leeyihiin inay gaaraan ay ku guuleystaan doorashada 2022 sidoo kale waxaan hambalyeynayaa gudoomiyihii hore ahna musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo aan leeyahay waxa sameystay geesinimo aan ku dhiiran hogaamiyaasha hadda xisbiyada hogaamiya sida Faysal Cali Waraabe oo xisbiguna wata kuna dhici waayay inuu wareejiyo xisbiga sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo isagu guuleystay madaxweyne ah حتى الآن laga filayahay inuu noqdo inuu wareejiyo gudoomiyaha xisbiga حي سمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى أن كلا يرحض الله شروينها كلها دحية حسبي وطني قرصومي شن يطمنكي لحية طمنكي بشي نوفمبر ونسود ويننا قدوميها عصب حسبي وطني laakiinse waxaan jeclaa inay yimaadaan wajiyo cusub waayo wajiyadu waxay ahaayeen wajiyadii hore ee ku soo fashilmay xukuumadii hore ee Maxamed Siilaanyo waxaan jeclaa inuu gudoomiyaal cusub xisbiga wadani magacaabo laakiinse waan u hambalyeynaa sida wanaagsan ee u dhacday xafladii qolada dhexe xisbiga wadani halkan waxaan ka hambalyeeyaa xisbiga wadani anagoo hambalyo ugu diray doorashadii ay ku doorteen shirgudoonka iyo gudoomiye ku-xigeenada hogaamin doona 5 sano soo socota gaar ahaan waxaan hambalyo qaaliya u dirayaa musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo sameeyay tallaabo dimuqraadiyadeed oo Soomaaliland dimuqraadiyadeedina wax ka taraysa xisbiyada qaranka Soomaaliland wax ka tari doonta tallaabada maanta uu qaaday waxaan leeyahay mudane musharax hambalyo maanta waxa xisbiyada qaranka iyo Soomaaliland dimuqraadiyadeedu u jahaysay wado lagu hirin karo oo aanu leenahay xisbiyada kulmiye u cidna wadada uu jeexay murashaxa xisbiga wadani waa in raacdaan oo ku dayataan waxaan kaloo rabaa halkan hambalyo ugu diro gudoomiyaha cusub ee xisbiga wadani la doortay shalay mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan horta waxaan hambalyeynaa hab siyaasadeedka Soomaaliland ee dimuqraadiga waa fiican yahay waa hana qaaday meel fiican buu marayaa axsaabta iyo sida loogu tartamayo waa hab wanaagsan geeska Afrika oo dhan Soomaaliland iminka waa ka tilmaaman tahay oo waa wadan horumar ka muuqdo markaan u soo dago arrintan xisbiga wadani ee iminka dhacday anigu arrinta waxaan u arkaa arrin lagu degdegay oo aan waqtigeedii munaasabka ah dhicin wareejinta gudoomiyaha maadaama oo siyaasadda Soomaaliland la yaqaano oo
ilaa iyo ninku dee madaxweynaha horta isku hubsado oo ku fadhiisto dee lama dhiibi jirin markaynu dhinac ka eegno beesha caalamka iyo waxyaabahaas waxay odhanayaan dimuqraadiyad baa Somaliland ka dhacday oo waa ka xagga waxbay ka tahay laakiin xaggii Ciro arrinta anigu waxaan u arkaa arrin odaygu uu ku degdegay oo deenu naga tashaday ahayd halka waxaan rabaa maanta inaan uga hambaliyeeyo madaxda xisbiga wadani ee ugu horeeyo Cabdiraxmaan Ciro gudoomiye maamulka cusub ee hadda la doortay oo ku xigo Xirsi Xaaji Xasan waxaan leeyahay dadaalka quruxda badan siyaasadda madaxa furan ee aad muujiseen hambaliyaan idin leenahay maamulka cusub ee hadda la doortay dhammaantood waa hambalyeynaya dhammaantood shacabka taageerayaasha xisbiga wadanina waxaan leeyahay hambaliyo guul ayaa soo hoyatay bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore aad baan u soo dhaweynayaa isbedelka gudoomiye Ciro uu ka sameeyay xisbiga wadani waxa uu sameeyay waxaan weligood ay sameyn madaxdii ka horeysay marka gudoomiye Ciro arin aad u adag buu ku dhiiraday arinka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa hadaan nahay bulshooyinka degmada Ceelafeyn gudoomiye Xirsina gudoomiyenimada xisbiga aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa waxaan leenahay gudoomiye ku soo dhaw xisbiga insha Allah waxaan u diyaar garoonaynaa doorashada 2022 ee ka dhici doonta Somaliland insha Allah xisbiga wadani waxaan u rajaynaynaa guul insha Allah aad iyo aad baan u salaamayaa gudoomiyaha xisbiga Ciro waxaan kaloo salaamayaa Xirsi Cali Xaaji Xasan oo gudoomiyaha xisbiga 5 sano ee soo socda xisbigu aad iyo aad buu talaabsaday aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa nin wax qabanaya oo mustaqbalka xisbiga Somaliland wax qabanaya ayaa loo dhiibay aad iyo aad baan u salaamay magacaygu waa Cali Axmed Saalax anigoo kamid ah dhalinyarada ku dhaqan degmada Ceelafeyn waxaanu halkan hambaliyo aan la soo koobi karin aan u marinaynaa isbedelka degdega ah ee ku dhacay xisbiga wadani gudoomiyaha loo doortay 5 sano ee soo socda inuu xisbiga wadani ka noqdo gudoomiye mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan waxaanu leenahay hambaliyo isbedelka degdega ee aadka loogu farxay xisbiga wadani siyaasadda in midna la bedelo la isna doorto isbedel la dhaco xisbiga wadani waxaanu aad ugu taageeranaa xirsigu maadaama nin dhalinyaro ah yahay haddaanu nahay dhalinyarada degmada Ceelafeyn aad hambaliyaan soo koobi karin baan isbedelka dhalinyarada Somaliland u horseedka ah ee yimi aad baan ugu horseedanaa Adruus Jaam Maxamed CBA Ceelafeyn hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Somaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa Telesom